عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وكهذا لا يمجع أوروركا Somali laystan liiton bali ay kaayna buuhayohtaya waxaan leeyahay soo dhawaada caawa waxay noo ahayd caawa maalin nala siinayay waxaan ahaa waxbarasho ku saabsan qaabka fariinta loo gudbiyo koodii hore waxaana la siiyay waxyaalaha aas-aaska ama biyeestinta bayrusteed maxay u kala qaybsan tahay macnaha taariikh noocee ayay leedahay farriimaha la fari doono waxaa kaloo jirta in macnaha ayadana uu cashirka uu ku jiray macnaha qaabka isintuminanka ama qaabkii qofka u soo bandhigi lahayd waxyaalaha ay rabto inay bulshada ama ruuxa uu ku socdo fariintaasi ay u gaari lahayd waxaana la baray broadcast oo ah asna macnaha qayb sahasha in qofkiisa in uu cod ahaan ama fariintiisa uu u gaarsiiyo guud ahaan bulshada ama macnaha objectiveka ama dadka ay ku socoto oo ay macnaha markaas ayaa ayadana aan ku baranay run ahaantii barnaamijkan waxyaalaha looga gol lahaa ama la rabay in lagu baro waxay ahayd in qaabka VST-kada wadankan Finland oo ay jiraan waxyaalo badan oo anaga dad negative oo wax naga sheega dadka jidka jooga la iska soo qaato ruuxii ku haboonaa oo Soomaalida u jawaabi lahaa maadaama ururkan uu yahay boolus tababuhaya ama xuquuqda ummadda Soomaaliyeed u dooda dadkii biri ka dhaadhacsiin lahaa dhinaceena fiican bulshadan aan la joogno ee Finland ayaan ayadana aan maanta ku baranay waxaan mahad celinayaa hay-adihii naga taakuleeyay dhaqaale ahaan iyo tababarayaashii Maxamed Ibrahim iyo Cabdi Muuse ayagana waa u mahad celinayaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaa halkan ila fadhiyo gudoomiyaha golaha dhexe oo asna maanta joogay dadkana waxaan u yeerano 15 qofood ugu dhignay in waqtigii koronaha oo sugso laha ama xilligii deerta oo soo badanayo waxaana ogtihiin in uu yahay macnaha virus saf mareena oo dilaaya marka waxaan isku daynay in aan maanta ku soo koobno bulshadooda waa naga soo qayb gashay Cabdi Muuse oo iyo ninka la yiraahdo Allah musta'an Maxamed Ibrahim Pakistan waxay naga ballan qaadeen in ay mar labaad noogu doonaan koorso noocaana haddii Ilaahay yiraahdo marka Cabdi Muuse oo Soomaaliya ka soo noqdo maadaama uu hadda safar yahay haddii Ilaahay yiraahdona bulshadana waan ka badi doonaa haddii markaas ay noo masaamaxdo corona rayutuska ama macnaha arrimaha corona uu sababayo ama saameyntiisa in aan dadku is arki doonin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulay ani aqoon badan kama lihi fiisintada laakiin maanta waxaan bartay in aan wax gudbin karo qaabka wax ku gudbin lahaa iyo agabkii looga baahnaa marka wax la gudbinayo agab buu u baahan yahay wax lagu gudbiyo agabkiina waa la ibaray kulay aniga aqoon saas badan kama lihi sidii macnaha aad wax u fasirayseen baan wax badan kala dhex baxay maanta waxaan aaminsanahay in aan aniga xataa noqon karo macnaha wariye yar oo fariintiisa u gudbin kara ummadda kulay fariimaha saa sheegteena macnaha dadka waxay jecleystaan baa marka fariinta la gudbinayo iyadana meesha waxay ka soo baxday markuu Cabdi Muuse sheegaya qaabka macnaha qofka loo jecleysiyo waxaad gudbinaysa kaana waa helay waxaan kaloo iyadana macnaha aad uga faa'iidaystay barnaamijka hadda audio city-ga aad tireen macnaha markii la rabay in codka la duubto waxaa kaloo igu soo kordhisay macnaha in annaga macnaha waxaan qabanaa ciyaaro waaweyn oo waddanka aan ka qabano waxaa naga maqnaa waxaas oo ahaa afhayeenkayga aan u sheegaa macnaha in aan barnaamijkaas soo iibin doono baalka soo iibsada aad tireen telefoon kor looga helo oo codka si fiican macnaha u muujinayo kulli waxaa macnaha waa mixer waayo macnaha Zoom IQ ama Zoom audio kulli aad iyo aad baan maanta u faa'iiday qaybta media iga maqleen maanta wax badan baan ka helay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaan ka baranay wax badan meeshan waxaa ka mid ahaa VST-da sida loo gudbiyo ama codadka loo duubo taariikhdii hore ee VST-da Soomaaliya lagu gudbin jiray sidii taariikhihii hore markii hore uu noo bilaabay aad ayaan uga faa'iidaysanay inay VST-du tahay wax weyn ama in dadka wax loo gudbiyo
talabaadna waxaan maanta meesha uga faa'iidaysanay si dadka codadka loo jarjaro maadaama aan hore u aqoon ama aanan samayn jirin codadka jarjaridda ama sidaas oo kale waa wax maanta bilow noo ah marka baahida maanta kaliya kama bogan karno waxaan jeclaan lahay in marar badan naloo yimaado naloo samayso aad ayaan mahad celinaynaa intii soo qaban qaabisay iyo intii samaysay